بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين. halkan waxaan ku bilaabaynaa kooraska loo yaqaano Fundamentals of Computer Network. dhalinyarada ku cusub networka dadkii hore u yaqaanay intaba faa'iido u leedahay. marka qofku inuu wax ka barto technology gaar ahaan sidoo network u shaqeeyo, sidoo internet ku shaqeeyo, sidoo computer ula hadla protocolada la isticmaalo ayaan halkan ku baran doonaa. runtii waa kooras aan isleeyahay cid walba uu ku anfacaya. tiirigu kuma badna, imtixaan ma laha. sidoo kale waxaynu ku qaadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo PowerPoint iyo ayaynu casharka ku bixin doonaa. cid u baahanaa buugga aynu hore u soo sheegnay ayuu sidoo kale ayuu heli karaa. marka ugu horeyn aan ku horeyno muxuu yahay computer network ama network maxaa la yiraahdaa? waxaa la yiraahdaa the term computer network has been synonymously with more generic term network. kelmadda computer network marka la isku qaado waxaa laga wadaa guud ahaan waxa loo yaqaan network oo ah isku xidh. qofkaasi network intee leeg buu leeyahay? 4 qof weeyaan networkiisu, 10 qof weeyaan, followerskaagu intee yihiin buu networkaaguna noqon karaa. marka inta badan waxaa kaloo lagu define gareyn karaa oo definitionkiisa inta badan aan qaadan doonaa. Computer network is defined as interconnection of 2 or more computers. waa isku xidhka laba iyo wax ka badan oo computer ah. It is done to enable a computer communicate and share available information. kaasi oo ah inay labada device ama labada computer ay wada xiriiri karaan iyagoo wadaagaya resource-ka markaa yaala. maxay yihiin markaa resource-ka la wadaagaya ama waxa meesha yaala la share gareynaya muxuu yahay? tusaale ahaan serveraynu ku xiriirsanahay adduunka yaala. Facebook waa server. computeradeen iyo mobiladeen network Facebook ka isticmaalana waxa weeyaan waa deviceski server ka access gareynayay. marka mobilekeenu communication wuxuu la yeelanayaa serverkii Facebook. kuwa kalena waa la mid. okay, inta markaa kaga imaado waa maxay ujeedada network? ujeedada network waxa weeyaan in file la share gareeyo, laba computer iyo wax ka badan ay share gareeyaan. oo printer ba kamid ah in la share gareeyo, file meel dhex yaala la wada share gareyn karaa iyo wixii la mid ah. video chatting between computers way naga rimi karagnay. live meeting ayaa la galaa ama video calling ayaynu galnaa. adduunka meesha doontid kala joog waxa ku hirgelinaya waa network. ujeedada network laga leeyahay waa sidoo kale surfing webs. waa in webska browsing laga sameeyo. maxaa social media ku jira? idaacadihi baa ku jira, videos ku jira, YouTube-ka channeling, waxa doonta sheeg waxa weeyaan waxyaabaha la xiriira surfing web. okay, emails baa la iskula xiriira oo fariin baad u diraysaa qofkaana inay gaadho aad arkaysaa fariintaas. hadday gaadhi weydo waxaad helaysaa error sababta u gaadhi weydaya. intan dambe waxaa laga baxay waxa loo yaqaano telefoonada caadiga ee guryaha lagu isticmaalo oo maxaa replace gareeyay voice of IP ayaa bedelay. voice of IP-gu waxa weeyaan waa codkaagii oo internetka dhex maraya halkii awal traditional telephone si la soo dhigan jiray guryaha. marka hadda ujeedooyinka network loo sameynaya waa kuwaas ayaa laga maarmaynin. okay, muxuu yahay markaasi componentskan? network component baa loo yaqaanaa. componentsku maxay yihiin networka? dhadhaarada uu ku fadhiyo networku ee lagama maarmaankii maxay yihiin? dhinacan ku qacanteena bidix baan ka soo bilaabaynaa. waa clients. client waan sheegi doonaa ee waxa weeye waa adoonka serverka aynu oran karnaa client. hadda waqtigan switch waxa weeyaan device-ka isku xiriirinaya deviceska kala duwan ee haysano. cable-lada isku xiriirinaya medium baynu oran doonaa. marka mar dhow baynu kala qaybin doonaa. medium-kii baynu qaarna oran doonaa waa guided, qaarna waa unguided baynu oran doonaa. ninka loo yaqaano boqorka network-ka waa router. routerku markaa wuxuu ka shaqeeyaa isku xidhka waaweyn ee switch-yada iyo hababku waxyaabahay soo qabtaan. wixii ka dambeeya isagaa isku sii xidhiidhiya. marka waxa weeye waa wadnaha network-ga weey. isku xidhka waxyaabaha dibadda hadduu satellite ku xidhan yahay iyo fiber hadduu ku xidhan yahay waxa la yaqaanaa WAN link ayaa loo yaqaanaa. waa termyada muhiimka inaan barano.
hub imika inta badan waa laga baxay oo switchka loo wada guuray isna waxa weeye waa network device aan la ilaawi karin sidoo kale bridge ayaa suuqa isna ka baxay isna aan sidoo kale aan isagana si laftiisa aan la ilaawi karin marka devices kuwa kuwaasi aan hore uga socono haddaba network waxaynu qaybinaynaa qaybo waxaynu halkan u kala qaybinaynaa 5 qaybood waana ka badan karaan ayaynu u kala qaybinaynaa goor maxaynu u eegaynaa marka by geographically area ahaan intuu ka fargarayn karaa hadduu computer iyo laba computer isku xidhan yihiin waxaynu odhanaynaa waa local area network hadday ka badan yihiin oo shirkadaadu ay tahay company region ka shaqeeya gobol dhan ka shaqeeya gobolka ay ka shaqeyso waxaan u bixinaynaa waa medium oo aan idhaahdo waa wide waxa weeyaan land bay noqonaysaa sorry man bay noqonaysaa metropolitan area network bay noqonaysaa waa gobol bay ka shaqeysaa xaafad hadday ka shaqeyso waa local area network magaalo weyn oo gobol dhan hadday ka shaqeyso waa medium aan idhaahdo waa medium size oo waxa loo yaqaan metropolitan area network haddii ay ka shaqeyso laba dhisme iyo wax ka badan oo tusaalahan xaafado aanay wada gaadho waxa loo odhan karaa waa campus network wide area networkna waa ka ugu ballaaran ee adduunka oo dhan aynu soo qaadan karna inuu internetku yahay wide area network personally haddaad computerkaaga bluetoothka ku xidhiidhisid ama laba mobile aad isku xidhiidhisid waxa loo yaqaanaa personal local area network marka 6 qaybood baynu kala qaybinaynaa waa mid adduunka oo dhan ilaa iyo midka computer iyo laba device bluetooth oo kale la isku xidhiidhin karo halkan waxaynu imanaynaa network aynu kala qaybinaynaa wax loo yaqaan topology waxa weeye waa layout-ka u yaalaan qaabkay isku xidhiidhsan yihiin ma si isku midba midka kale ku xidhan yahay mise meel ay ku wada xidhan yihiin mise waxa weeyaan midba midka kale ayuu ka si talaalan yahay waa sidan oo kale waxa jira markaasi physical vice versa logical topology-yadan ka sheekeynayna ka noocan horta isaga sidiisa waxaan odhanaynaa wax la yaqaanaa physical topology-ga uu yahay waxa loo yaqaanaa star sidii xidigtii oo kale ayuu gudaha ku leeyahay device-kaasi kusoo wada xidhiidhsan yihiin dhammaantood waa star topologiesku aynu nidhaahno markaasi topology ahaan kanaynu hore usoo sheegnay waa star topology center ku yaala centerka communication ahaan centerka ayay wax waliba soo marayaan kan waxa loo yaqaanaa ring waa sida waxa weeyaan fargashiga la gashado ring computerkan datadu soo diraa kaas u tagayaa kaa kale u tagayaa kan u tagayaa isagoo kusoo noqonaya advantage-na uu leeyahay disadvantage-na uu leeyahay advantage-ku leeyahay waxa weeyaan inay dhammaantood uu computerkii dib u heli karo fariintii waxyaabihii laakiin disadvantage-kiisu waxa weeye inay datadii computerkii mar labaad kusoo noqonayso kan waxaa loo yaqaanaa bus long time ago baa la isticmaali jiray sida qasabadaha biyaha xaafadaha loo kala tallaalo kale ayuu ahaa xaafad bay kasii qaadanaysaa isaga laabas waqtiga lama joogo ka ugu fiican ee isna sidoo kale most userka waxaa loo yaqaanaa exactly aan odhan ugu fiican yahay laakiin kharashkiisa ugu badan laakiin dhinacu fiicnaantiisu waxa weeyaan dhinaca redundancy-ga waxa weeye device walba device buu ku xidhayay marka cable fara badan baa ku baxa disadvantage-kiisa marka number of cableska la helayo waxaa lagu helaa n times n minus 1 divided by 2 formuladaas lagu shaqeeya number of n waxa weeye waa number of nodes kani waa node haddaynu nidhaahno iyo haddaynu nidhaahno device iyo haddaynu nidhaahno network device waa isku wada mid ama workstation sidoo kale waa la yidhaahda marka n haddaan idhaahdo waa 5 waan ku dhufto 5 minus 1 oo laba u qaybiyo waxaa halkaa inooga soo bixi doonta halkaasi waa 4 ayaa ka soo baxaysa 4 5 ku dhufo waa 20 laba u qayb waa 10 number of cableska haddaad tirisid waa 10 cables marka n waa number of nodes markasta waa number of nodes aan ka gudbo resource-ka waxaa sidoo kale aan eegaynaa network deviceska inagoo ka eegaynaa resource location-ka sida resource-ka uu maamulo resource-ka sida uu maamulo waxaa jiraya markaasi wax la yidhaahdo client and server waxaynu leenahay halkan switch baa inoo yaalaa switchkan waxay noogu xidhiidhsan server iyo clientskani la-aantood shaqeyn maayaan serverku waa maamulaha deviceska kale waa ka markaasi u ogolaan kara inuu kan u diido ogolaan kara kana inuu ogolaan karo ogolaan kara inuu kani waqtiyada qaarkood shaqeyn karo peer to peer baa jira sidoo kale waa bilaa client
waa network device-keenii oo aan haba yaraatay iyagu ismaamulayo oo aan mudiir lahayn qof maamulo dhexdooda aan lahayn ayaa la yidhahdaa client aan idhaahda peer to peer nabaday